maanta waxaan idin hayaa qiso cajaayib ah oo runtii markaan akhristay aan aad uga helay waxaana markiiba idhi la gaar dadkii aad jeclayd oo adigu aad ka mid ahay sheekadan waxaan ka akhrisanayay buug magaciisa la dhaho waad guulaysan kartaa you can win buuggan markaa waxaa afkeena hooyo noogu tarjumay Dr. Jamac Sahal sheekadan waxay odhanaysaa nin xafiis la oran jiray ayaa wuxuu markaasi lahaa beer weyn oo markaasi uu markaa wax ku beeri jiray beertiisa weyn markaa aad ay u jeclaa uu ku qanacsanaa uu ku faraxsanaa lahaanshiyaha beertan maalmaha kamid ah ayaa nin xikmadlow ah baa u yimid ninkii la oran jiray xafiis ee markaa ahaa ninkii beerta weyn lahaa wuxuu markaa uga sheekeeyay ninkii xikmadlowga ah baa sheekeynayay wuxuu uga sheekeeyay qiimaha diamond diamondku wuxuu yahay wuxuu ku yiri diamond haddii aad hesho fartaada la eeg magaalo ku gaar ah ayaad yeelanaysaa sidoo kale haddii diamond fairkaaga la eegad heshana sidoo kale wadan ku gaara ayaad samaysan kartaa micnaha qiimaha ay diamond leedahay iyo sida ay qaaliga u tahay ayuu markaa u sheegay ninkii markaa beertiisa ku qanacsay xafiis la oran jiray wuxuu markaasi sababtay inuu markaa ka rajo beelo oo uu doono markaas diamondtaas qiimaha badan leh nin ayuu ka iibiyay beertiisii markaa wuxuuna si toos ah markaa ugu socdaalay inuu doono diamond isagoo markaas kaga kala gudbay qaarado Yurub iyo sidoo kale Asia qaybo kamid ah Yurub markii dambana uu galay Spain isagoo markaasi Barcelona ee wadanka Spain jooga ayuu markaa rajo dhigay taasina markaa waxa isagoo markaa niyad jabsan sidoo kale waxa ka dhamaaday sahaydii markaasi sitay uu ku socdaalayay taasoo markii dambe sababtay inuu markaasi uu halkaasi ku dhinto muddo kadib waxa markaasi ninkii xakiibsaday xafiis beertiisa ayaa maalin asagoo geeliisa waraabsanaya wabiyaro doox yar u dhow markaa geeliisa ka waraabsanayo ayaa markaa waxaa iftiintay diamond meel iska taala ayaa aad u iftiintay ninkana garamaayo diamond ilaa niman libax garanayn ayaa lax ka ritay wax markaasi sababtay in markaa bal eego diamondkan quruxda waxaan yacni dhalaalaya markaa ishiisa ka cawaraya uu soo qaaday dhagaxii uu ka helay markaa gurigiisa meel kamid ah ayuu saartay ninkii markaa xikmadlowga ahaa maalinkii hore xafiis uga sheekeeyay qiimaha diamond wuxuu ku yiri meesha xafiis baa yimid markaa wuxuu weydiinayay ninkii markaa xafiiska iibsaday beerta wuxuu ku yiri may maxaa su'aasha aad ku keentay dhagaxaantan waxaan ugu talagalay inaan markaa gurigeyga ku quruxsado sidoo kale beertidana qaybo kale ay yaaleen ayna mar aan soo aragnay dabeetana ninkii baa raacay dhowr dhagax oo kale soo qaadeen kii meesha saarnaa dhamaantood waxay u geeyeen markaa rag yaqaana diamondka waxaan markaasi la ogaaday inay waxaan yihiin diamond oo markaa ay markaa muhiim badan leedahay waxaana la ogaaday beertii uu xafiis ka doontay diamondta inay lafteedu ku fadhido dhul weyn oo markaa diamond ah ya salaam sheekadan waa mid cajaayib badan markaan akhristay aad ay cajab gelisay adigana sidoo kale ay rajeynaya isla sheekadan maxaan ka baranaynaa ay tahay su'aashu kala marar badan haddaanad fursadda aanad garanaynin lafteeda ayaa ku dhirbaaxaysa oo godmadow kugu ridaysa walibana ku diraysa fursaddu mar kaliya ayay timaadaa mar labaad ma soo noqoto haddii ay soo noqoto waa mar ay fursaddii hore ay ka xun tahay ama ay ka sii wanaagsan tahay ay mudnaanta leh waxay tahay inaad ogaato sida looga faa'iideysto yaani ku dhibin garaaca badan ee fursaddu ay albaabka kugu soo garaacayso ha oranin waayo waad naxiijiseen waayo laakiin waa inaad tiraahdo soo dhawow fursaday aad ayaan ku sugayay imikana ku soo dhawow inaan ka faa'iideysto waxaan ku soo gabagabeynayaa xitaa haddii aad qaadato go'aan sax ah xilli ay fursaddii galbatay oo ay tagtay go'aankaagaas wuxuu la mid noqonayaa go'aan khaldan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkeena maanta intaan ku kulmi doono barnaamijkan barnaamij la mid ah waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh